inaan ka sheekeyno mowduucan maanta maraya marxalad xasaasi ah oo taariikhda Soomaalida ay u tahay muhiim runtiina nagu ah wax nagu cusub kaliya ma ahayn nagu cusub yihiin nagu ah lama filaan oo laga yaabo hadii awoowayaashii reer Hargeysa u soo halgamay xorriyadda qabrigooda inta loogu tago loogu sheegi lahaa maanta Israa'iil wasiirkeedii arrimaha dibadda Hargeysa jooga dareenkooda sidoo noqon lahaa waxaan maleynayaa qof walba adinkeedii kamid ah inuu yaqaano marka runtii waa dhaawac taariikheed waa dhaawac bulsho waa dhaawac dareen oo aan runtii mudnayn dadka Soomaaliyeedna aysan mudnayn dadka waxaan sameeyay hoggaanka sheeganayana dadka ay xukumaan aysan ka mudnayn in taariikhdooda ku qoranto waxa hadda dhacay waxaan doonayaa si aan waqtiga uga faa'iideysto marka koowaad inaan laba hore dhac oo asaasi ah idin sheego hore dhac koowaad waxa weeyaan walaalaha reer Somaliland shacab ahaan ummad ahaan dad ahaan eed loo haysto ama khalad ay galeen oo loo haysto bulsho ahaan loogu haysto ummad ahaan loogu haysto ma jiro waa khalad hoggaan galay waa gabadhfal hoggaan sameeyay waa taariikh madow oo hoggaanka meesha hadda jooga uu sameeynayo sida darteed shacabka reer Somaliland waa dad walaalaheena waa dad ehelkeena waa dad aan wax walba wadaagno hadii maamulku uu khalad galana ayaga looma xisaabinayo eedeedana ayaga iska male sababtoo isku masiir baanahay masiir ay kaligood leeyihiin ma jiro sidaan Muqdisho u jecelnahay baan Hargeysa u jecelnahay sidaan Baydhabo u jecelnahay Burco sidaan Boosaaso u jecelnahay baan magaalooyin kale oo la mid kaana u jecelnahay sida darteed waxaan rabaa inaan warkayga ka bilaabo laba mowduuc labaad oo rabo inaan hagaajiyo oo codkaygu uu doodaydo ay ku fariisato waxa weeyaan waxaan ka hadlaynaa i'tiraaf xaq ma u leeyihiin mise xaq uma lahan waa arrin legal ah waana arrin sharci ah doodaas sharciga marka dadka khubarada ah ee aqoonta u leh baa mudan inay soo jeediyaan oo ay ka hadlaan oo laba awoodood leh awood taariikheed aqoon taariikheed oo xeel dheer u leh aqoon legalna u leh sida darteed waxa la rabaa in laga hadlo waxa waaye i'tiraaf ma aha waxa laga hadlayaa waa Israa'iil inay ku aqoonsato waayo dooda laga hadlayo maxaa kaaga dhalanaya hadda adiga laftigaaga reer Somaliland tahay oo deegaanadaas ku nooshahay maxaa ka helaysaa maxaa ku khasaaraysaa maxaa ka faa'iideysaa laakiin qadiyada ah waa goosanaynaa waa mowduuc u baahan maalin kale iyo sharaxaad kale in laga hadlo oo dhan diineed laga eego oo dhaqan laga eego oo sharci laga eego oo taariikh laga eego sida dadka qaar baa waxay isku khaldeen waana la aqoonsaday hadii la aqoonsaday yaa ku aqoonsaday cidda ku aqoonsatay waa ayadu ma haysataa sharciyada dhameystiran oo ay ku aqoonsan karto oo ay ku leedahay marka qodobka labaadna waxa weeye midka hore dhaca iyo qodobka labaad waa laba qodob aan raba inaan doodeeda hore dhac uga dhigo waxaan u imaanayaa maamulka hadda Somaliland ka jira madax kala duwan baa soo qabatay marxaladda taariikh ahaan xoogaa dheerayd la darsi kara waxay ahayd marxaladii Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal dad fara badan oo taariikhda yaqaan xoogaal bay u yihiin Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal hadafkiisu wuxuu ahaa koonfur inuu heshiisiyo oo shirweyne u qabto oo isugu geeyo deegaanadaas meeshaasna ay ka soo dhaxbaxdo in asaga lagu maamuuso Soomaaliya midaysan oo mid ah inuu madaxweyne u noqdo ama ay ka soo baxdo inuu asaguba sheegto inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya calaamadii Soomaaliya meel kasto laga mudi lahaana uu ka mudo laakiin shaxdaas maxaa fashiliyay see lagu fashiliyay maxaa ku dhacay waqti kale iyo dood kale ay u baahan tahay mar raba hadda caawin dood iga leexato laakiin Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal Allah u naxariisto wuxuu dhintay asagoo ka xun inuusan Soomaali isla joogin qorshihii uu watayna laga leexiyay waxa ku soo xigay Daahir Riyaale Kaahin oo maskax sirdoon lahaa fahamna bulshada u lahaa asaguna wuxuu xoog saaray in deegaanadii isticmaalka Ingiriiska intuu haystay si dhameystiran u wada gaaro kabacdina uu abuuro deganaansho siyaasadeed
uu abuuro deganaansho dhaqaale dhulkii ay ingiriiska xukumi jireenna uu gaaro meeshaas markuu gaarayna wuxuu rabay inuu bilaabo lobby iyo shirkado inuu inta raadiyo uu yiraahdo halayla raadiyo in Soomaaliland la aqoonsado waxa ku soo xigay Silaayo wuxuu helay la talin sharci ah la talin siyaasadeed iyo khubaro wuxuuna fahamsanaa hadday noqoto wax leedahay i'tiraaf inay xamar ka soo jirto meel kale loo dooni karo inaysan jirin watuu sameeyay in wada hadaladii la furay golayaasha Soomaaliland la geeyay la wada ansixiyay wada hadaladii u horeysayna la furay ilaa waa dhaweyna ay wada hadalada socdeen wada hadaladaas hadafkeedu wuxuu ahaa war xalkanaga Muqdisho yaala meel kale adduunyada kamid ah oo aan ka heli karno ma jirto hadii Silaayo uu baxay Allah naxariisto waxa yimid Muuse Biixi wuxuu ku sifaysan yahay inuu yahay Gorbachev-kii midowga Soviet kala diray Soomaaliland asaga kala diray deegaanadii dhibaato ka dhex sameeyay bulshadiina isku dhex burburiyay meelaha qaarna weeraray waad garanaysaan wixii uu laasacaanood ka geystay oo hadduu diyaarada haysan lahaa waa duqayn lahaa sababtoo ah abwaanadii uu hoobiyo ku garaacay haddii marka uu diyaarada ka waaweynay miyiga haysan lahaana wuu ku dhufan lahaa taas wuxuu asagu noqday ninkii Soomaaliland deegaan ahaan iyo juqraafi ahaan u sii kala baabiyay waxa yimid Cabdiraxmaan Ciro oo cid walba qalday Soomaalida qalday Soomaalida xamar joogta qalday dadka dibadaha jooga qalday xataa dunidu waa koox siyaasadeed kooxda hadda oo la dagaalamaya qalday dawladaha islaamka ah ee hadeertan ka soo horjeeda dad kuwii wax laftigooda uu soo qalday wuxuu gadi jiray wax la yiraahdo aniga midnimada Soomaaliya aan rabaa i'tiraaf wax la dhaho ma aadi doono aqoonsi ma rumaysno waxa soo cid walba ku oran jiray aniga dadkii rumaystay baan ku jiro moodaay inuu run sheegayo laakiin gadaal baan ka sharxi doonaa mowduuca i'tiraafka gacantiisu ku burburiyay wuuna tirtiray rajo dambe oo i'tiraaf la yiraahdo oo reer Soomaaliland uu imaan doontana ma jirto markii la gaarana markaan hadalkaan sii wadana sharxi doonaa laakiin asagu wadadii la filayo inuu midnimo la soo aado Soomaali isku soo celiyo wada aan ahayn buu aaday oo qardajeex ah oo wixii hankii xataa ay lahaayeen ama sharci hawaada ama sharci daraa u ahaade asaga gacantiisa ku burburiyay reer Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland iyo waxgaradka Soomaaliland waxa la rabaa inay fahmaan waa dhowr qodob qodobka koowaad waxa waaye i'tiraafkan Israa'iil ay bixisay laba shay oo asaasi ah oo reer Soomaaliland ay ku taagnaayeen mid waxay ahayd waxaan la soo noqonay dawladii aan lahayn baan la soo noqonay taa anigeeda yiri waa dood sharci ah waqti dheer qaadanaysa mar raba hadda inaan galo dooda labaad ay ku taagnaayeen waxay ahayd inay yihiin dhibanayaal nidaamkii siyaabo u dhibaateeyay mararka qaar codka kor loo qaadayo oo la dhahayo koonfur baan laga dhibaateeyay ina marka doodaadu ay ahaato dhibane Falastiin dibka loo geysanayo kii u geystayna alla jirsato reer Soomaaliland maamulka Soomaaliland doodii ugu cuslayd oo uu haystay buu maalinta WhatsApp call-ka Netanyahu kula hadlay oo iska tirtiray sida darteed dad fara badan oo waxgarad ah oo reer koonfur ah ama Soomaaliya oo dhan ah oo anigu aan ku jiro markaan dibadaha marayno meel badan aan tagayno oo la yiraahdo maxaa Soomaaliland aqoonsi u rabtaa annagoo hoos fiirinayna waxaan oran jirnay waa la dhibaateeyay dhibaatadoodana in xal loo helo waa laakiin maanta ma umaleynaysaa in hoos la fiirinayo qofka Soomaaliga ah markuu dibadaha tagana hadda waxa la bilaabay in la weydiiyo adiga reer Soomaaliland baa tahay mise reer Jumhuriyadda waxa tahay Muqdisho tahay sida darteed kaarkii ugu weynaa ee ugu cuslaa ee macnaha sameynaya wuxuu ahaa inay dhibanayaal ahaayeen oo dawladii dalka soo martay ay dhibaataysay inay dhibaato dhacday lama inkiri karo in dulmi loo geystay lama inkiri karo madaxda Soomaalida kulligoodna waa wada qireen qaarkoodna waxay ka bixiyeen garaabasho waa ka garaabeen raaligelinna waa ka bixiyeen sida darteed waxa dhimatay maalintii WhatsApp call-ka ay ku wada hadleen labadaas nin inaan mar dambe la sharxi doonin war adiga xagee aaday hadda adiga cabanaysay nin 100,000 dilay oo dhowr milyan oo qof qaxiyay oo ilaa hadda dhibaato aaday baa telefoon u dirtaa waxa leedahay dhibanaan ahay aqoonso marka adiga shalay madluumiyaad sheeganayso waa laga gardanaya hadlayn markaas daalimkii aad u heelisay sida darteed qadiyada Falastiin maxaa looga jawaabi doonaa hadda adiga ka sheeganaysid dulmi
hadeertaan midii u dambeysay laas caana ay ahayd oo hadeertaan ka taagnay waan hadda lahaa hadduu diyaarada musabixi haysan lahaa wuu ku duqayn lahaa laakiin dooda laas caano dood loo kala bay ahayd annaga dhexdeena oo baa isfahamsiin karnay iyo intii adduunyada nala fahmi karto laakiin qadiyadda Falastiin qof kastoo dunida ku nool carab iyo cajam waa dood la wada fahmayo khasaaraha labaad ee qadiyadda Soomaaliland hadda ku dhacay waxa weeyaan waxay ahayd hawl fariin ka imaanaysa gudaha una socotay gudaha waxay ka cabanayeen Hargeysa Muqdisho ka cabanaysa qof kasta oo ajnabi ah ama muslim ha ahaado ama dunida kale ha ahaado ama arab ha ahaado ama afrikaan ha ahaado marka uu qadiyadda Soomaaliland ka hadlayo wuxuu oranayay reer koonfurdaadkii walaalihiin ma qancisaan adinkana walaalihiin si awla noolaan kartaan ma jirtaa intaas la isweydiinay laakiin waxa dhacay wixii ka dambeeyay maamulka Soomaaliland ee hadda jira wuxuu khatar ku yahay amniga caalamka wuxuu khatar ku yahay amniga gobolka wuxuu khatar ku yahay amniga dariska wuxuu khatar ku yahay amniga badaha iyo socodkii dhaqaalaha adduunka sadarteed meeshii la rabay war aniga hal ay caawiyo hadda mashruuci Soomaaliland wuxuu isu bedelay mashruuc khatar ku ah dawladihii carabta khatar ku ah dawladihii islaamka khatar ku ah cid walba ee xataa dadka ba maxaan ku raadada doomankooda iyo maraakiibtooda ay halkan ay soo marayeen sida darteed tabashadii waxay isu bedeshay khatar rijinka ah iyo khatar gobolka ah iyo khatar caalami ah waxay garan waayeen reer Soomaaliland waliba maamulka hadda jooga uu garan waayay isbedel kasta ee goob ka dhaca ama gobol ha ka dhaco ama dal ha ka dhaco laba sababood midaan ka baxsan kuma dhaco isbedelku inuu gudaha ka yimaado ama inqilaab ku yimaado ama doorasho ku yimaado wax kasto isbedel la sameeyo dadka u dhashay aan baa sameyn kara isbedelka labaad wuxuu ka iman karaa dawladaha dariska ay cid gudaha oo isla socota inay sameyso oo tusaalooyin fara badan baa u haysataan mar raba inaan hadda ku dheeraado sharaxaadeeda laakiin taariikhdu waxay qoraysaa isbedel WhatsApp call ku yimid iyo nin telefoon soo diray wax taariikhda juqraafiga oo dhulkan ka bedelaya lama arko isticmaalkiiba wax ka bedeli waayay kuwada ka waaweynba wax ka bedeli waayay kuwa awood lahaba wax ka bedeli waayay dawladdan ayada laftigeeda nolosheeda iyo rafaadkooda jirtaba telefoon ay ku soo dirtay nolosha reer Soomaaliland waxba kama bedelayso nolosha Hargeysa waxba kama bedelayso bilcagsi waxay haleynaysaa wax fara badan oo xaqiiqada nolosha la leh waxaan aad u la yaabaa in la garan waayo maanta meesha la joogo isbedel aan rijinku keenin isbedel aan gudaha ka imaanin meel faaq telefoon lagaaga soo diray ina isbedel u malayso oo mash xarado runtii waxaan la filaynin bay ahayd khasaaraha kale oo dhacay waxa waaye oo ka xun baan waliba sheegaya eragaas dad reer Soomaaliland oo shacab ah oo muwaadiniin ah inay jidka soo istaagaan calanka Israa'iil qaadaan oo sacbiyaan taariikhda dunida islaamka kama dhicin dadka taariikhda dunida islaamka yaqaanana way garanayaan caalamul arabina kama dhicin way jiraan dawlado muslimiina way jiraan dawlado carab ah oo Israa'iil xiriir diblomaasi la yeeshay oo safaarada furay laakiin hal qof oo muwaadin intuu banaanka soo istaagay wax ku faraxsanay xataa ma oran hal qofna oo mudaharaadin sida darteed waa ceeb iyo taariikh xumo inaad calankii Soomaaliland la diido oo qofkii qaatana xirto calanka Israa'iil la aatira waa ku labisanaya waliba mashxarado oo wax marnaba aan aqliga bini'aadanka galaynin sida darteed waa ceeb u baahan in la iska dhaqo oo u baahan taariikhda in laga dhaqo waxaan u imaanaynaa maamulka Soomaaliland wuxuu garanaynin asaga Israa'iil ma ictiraafin wana qodobada aan la fahmin asaga dal muslim oo ku abtirsada asaga shacab Soomaaliyeed ku abtirsada asaga caalam carabi ku abtirsada asaga Afrika ku abtirsada asaga Israa'iil aqoonsaday sida darteed cid la aqoonsaday waa Israa'iil cid la aqoonsaday Soomaaliland iyo maamul Soomaaliland ma ahan waxaan ku garan kartaa waxba lama siininba kabinetkii yaraa ee security-ga ahaa Israa'iil ay lahayd lama geynin kii golihii wasiirada lama geynin la caawadan ay la hadlaayeen lama geynin kaniisadkooda iyo baarlamaanka lama geynin xataa qaanuunka Israa'iilka u qoran wali Soomaaliland lama marsiinin waa WhatsApp call oo laba nin ay ku wada hadleen asaguna uu faa'iiday oo wax ka helay qodobka kale u dambeeyay waxa waaye reer Soomaaliland waxay lahaayeen taariikh dheer oo ay dunida carabta ku lahaayeen saaxiibo shacab bay ku lahaayeen waxaan ka mid ahay dadka aad dunida carabta ugu noolaaday ku dhex muddo dheer dhex joogay ka shaqeeyay